فرين طلبات ندري الدولة دا Soomaaliya iyo siyaasi reer Kenya oo aan dhageystay isagoo ka hadlaya arrintan maalmahan taagnay horta anagu Somaliland haddaan nahay waxaanu muddo badan la yaabanayn madaxda Soomaaliyeed ee nala fahmina in Somaliland dal jira oo caalamka kamida oo aqoonsi haysta haddii ay noqoto inay dal Soomaaliyeed ku jirto sida madaxda nala fahmina baanu la yaabanayn waxa yaabkiisa nagu noqotay dalka Eritrea oo Jabuti dhulka haysta inama Jabuutiyaan oo reer Jabuuti oo inama Soomaaliyeed ah waxna laayay waxna haysta ayaa maamulkii Soomaaliya u talinayay walaal bay u arkeen Ismaaciil Cumar Geelo la og yahay xoog iyo xoolo iyo wuxuu xeelad hayayba inuu dul dhigay in qarannimo Soomaaliyeed soo noqotana maanta cadow bay u arkeen nasiib darrada dhacday muxuu ila fahmi inaan anigu kordhaysa oo geeska Afrika ku soo kordhaysa oo ummadda Soomaaliyeed dad oo aynu ii arkin ninkan ka filayay ee aan la yaabanaa haddii kii 20 sano dhisayay uu yiri maanta waa cadowgaygii wuxuu yiri mar haddaanan naaskii walaal idinka nuugaynin ninku xiga naxliga ka galaa nuugayda ka gaariye man nasaaradaad iga xigtaan nabiyadii goysay gabaygaasay Ismaaciil Cumar Geelo dawladii Muqdisho soo qaadatay waan ka xumahay iyadoo la og yahay waxa uu awood saaray Ismaaciil Cumar Geelo in sharaftii iyo qarannimo Soomaaliyeed soo noqoto haddii abaalkii noqday mar haddaanan naaskii walaal idinka nuugeen hadii loogu jawaabay ee anagu quusanayba inaanu sugno inay nala gartaan dal soo kordhayo Soomaali u soo kordhayo inaan Somaliland tahay kii 20 sano waday bay halka dhigayaan waxaan la yaabay nin siyaasi oo reer Kenya oo Soomaaliya Faarax Macalin la yiraahdo ayaa wuxuu yiri waxa Ismaaciil waligiiba hor taagan yahay in qarannimada Soomaaliyeed iyo sharafteedu soo noqoto waxaan garan lahaay markuu Ismaaciil Cumar Geelo sharafta iyo qarannimada Soomaaliyeed hor taagan yahay cid doonaysa sharaftii Soomaaliyeed waan garan waayay uu sababeeyay ninkaasi markuu sabab u sameeyay inuu Ismaaciil Cumar Geelo hor taagan yahay qarannimada Soomaaliyeed wuxuu yiri waxay saaxiib dhow ahaayeen Malla Seenaawina markii dhimashadiisii aan ka hadlay wasiiro Ismaaciil Cumar Geelo la fadhiyay xog aan ka helay waxay yiraahdeen Ismaaciil wuxuu yiri muxuu sidaa ugu galayaa ninka hogaamiyaha weyn ee dhintay Faarax Macalin bal ilaa baan idinku dhaarshay waxaad u fiirsataan ninka ku qiimeynaya in Ismaaciil Cumar Geelo qarannimada Soomaaliyeed hor taagan yahay Mallas buu saaxiib la Mallas wuxuu ahaa nin Itoobiya madaxweyne ka ah danaha Itoobiya iyo Jabuuti ka dhaxeeya intay leeyihiin waa ogtihiin inay laba hogaamiyo oo aragti fog yihiin caalamka oo dhan baa labadaba ka marqaati kacaya arrintaasi sababayntaasi ilma afar jirihi ma sameeyo reasoninka noocaas waxaan hadaba la yaabanahay mar haddii annagu odhan mayno waa isku sinjigeenood waa dad Soomaaliyeed oo waxa la yiri waan tol xumahay iyo waan xaas xumahay midna lama yira waa dad Soomaaliyeed oo jinsigooda wax ka sheegi mayno laakiin Ismaaciil Cumar Geelo waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Jabuuti 60kii dawladnimo dhan baanu geyno reer waqooyi qaldaan waayo baan la yiri 20kii sano iyo 25kii sano u dambeeyay nafiya maalba waxaad madaxweyne dul dhigtay in qarannimada Soomaaliyeed soo noqoto haddii maanta madaxdii Soomaaliyeed walaalkood afawarqi noqday waxaad ku shubaysayna hal bacaad lagu lisay noqdayo nacab iyo cadow lagu maahmaahayo gabaygii mudane madaxweyne anu madaxweyne abtibaan oo gabadh Samaroon Island dhashay abti on behalf of Somaliland people ana magaca ummadda reer Somaliland oo dhan ku hadlaya oo mar abti kule marna adeer kule marna haddaan doono seed kule waxaan leeyahay 30 sano halkaad ku jirtay ee aad wax ka dhig lahayd kuguma haysan inaad Soomaali wax tarto waa meel u baahan inaad wax tarto markaan qarannimadayda ka hadallo waxaanu nidhaa Jabuuti baanu wehel ugu noqonaynaa in Soomaali la badbaadiyo Soomaali badbaadi maanta u baahanta god baa lagu riday inay ka soo baxdaan la doonin hadday Somaliland dawlad noqoto Ismaaciil iyo Jabuuti ba garab bay ku siiniyo hiil labaad bay u noqon
ورأيي عن قبنين دم صومالية دوار كينو دولة دمية سوماليلاند مرسى هدي ولا الإسماعيل وأبت أو أبالكي نقضين كحيجا نحلقة كاجلا أي هل كان مريسو أطير أبتي وحن كلية صوبيت إنك إلهي سكين بدي سوماليلاند يجبوتي لا إلهي سبدي إنك اللي بالدولة لوجه إنك الدرس إنك طلابي قرمدة ضباهاتو أدين كلوكتا كسعدا إياك جارية كسعدا إياك لاش كير كسعدا سومالي لان كاغا سو قرمدا ساعد قده بوابتي كل تشوغا تندولك كقاد وبورك كجفو أبتي صوبيت مرة بعدية مرسد هذا همبليو شعب وينها غير جبوتي ويا أرجينا يروق عداجينا لما هلوا دفء نوا يارجنا من تلاقله دل هالكا كسوق الله هالكا مرينيا هدو إذن كأقبل يسقط الدواد إن شاء الله إنه يديش قيو إلهي يقوم هذا نقدي بدور ثواب ما سنتي والسلام عليكم